muddo 11 sannadood ah markii guurkoodu ay ka soo wareegtay haweeney iyo ninkeedii ama saygeedii ay isqabeen isuna dhexeen ayaa waxaa u dhashay ilmahoodii ugu horreeyay oo wiil ahaa waxayna ahaayeen lamaane isjecel iyadoo wiilka uu u dhashay uu ahaa tufaaxii indhahooda ay ku duugsanayeen. Haddaba maalin ka mid ah maalmaha ayaa wiilkooda oo 2 jir ah ayaa aabbihii arkay dawo sharoobo ah oo furan. Waxa uu ka daahsanaa shaqo. Waxa uu sheegay xaaskiisa inay furka ku xirto armaajada korona saarto. Hooyadii oo jikada aad ugu mashquulsanayd gebi ahaanba way hilmaamtay. Wiilkii ayaa arkay dhaladii, waa uu qabsaday wuuna wada cabbay. Waxay ahayd sharoobo dadka waaweyn loogu talagalay, carruurtana khatar ku ah. Goortii ilmihii dhacay, hooyadii ayaa kula carartay isbitaalka halkaas oo uu ku geeriyooday. Hooyadii ilmo iyo argagax ayaa isugu darsamay. Waxay ka sii naxsanayd sida ay saygeeda ama ninkeeda u wajihi doonto maadaama ay arrintan sahlanayn. Goortii aabbihii oo la bahaarsan yimid cisbitaalka una arkay meydka ilmihiisa uu sannadaha badan sugayay, waxa uu eegay xaaskiisii. Ilmo ayaa wejigeedii qarisay. Waxa uu ku yidhi 4 eray: waan ku jeclahay gacaliso, samir iyo iimaan Allah naga siiyo. Ficil celinta ninka filanwaaga ah waa dabeecad ku dhisan garasho, qadarta Alle, sabir, deganaan iyo fahan nolosha ah. Inkastoo ay xanuun badnayd sida wax u dhaceen, haddana ilmihii waa dhintay, marnaba dib looma soo celin karo. Wax natiijo ah kama dhalanayso in cillad iyo qalad u yeelo hooyada, iyaduba way weyday ilmaheedii. Waxay xilligaa u baahnayd waa tacsi iyo naxariis. Taasina waa wixii uu siiyey jacaylyaheedii. Mararka qaar walaal, waxaan waqti badan ku luminaa yaa mas'uuliyadda iyo eedda iska leh. Haddaba miyaysan ahayn wax aad u fudud inaan caafino kuwa aan jecelnahay ee inagu qaldama? Ogsoonow, wax kasta sabab ayay ku dhacaan. Noloshu way gaaban tahay. Ku qanacsano waxaad haysato. Ha garaysan xanuun, silic iyo saxariir. Badi sabirka, caafi dadka, xil iska saar mas'uuliyaddaada, iska tuur xaasidka, xinka, masayrka iyo nacaybka. Kolkaa waxaad ogaanaysaa in xaaladda xaqiiqdii u cuslayn sidii aad markii hore moodaysay.